ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحنا جنة كيان قلبي وفشل كسر وهذا عاوي مقال عصب عيد مبارك مركز تأدلون ذيك الجوكتان وحنا ليها عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير وديتو مانتي الأهلين كلوات مانتي لوات عيد مركز الجوكتان والسلام يا هدي أجنك عصبتها سبسكرايب صار فيديو كان نو لايك جراي نو شير جراي كومنت جراي سي برنامجنا ولا سعودي قبل كان فروه هذا أو ما صنتاي وعرفنا أنا عاو إن كجارسينو والحساسي أو ما تقانا إيشك بريك نيوز هذا الصوت معي هاي سلا نوع براتين أما آخرنا ولا سعتين بقى وربورك أو كحساسية هبان دي سودينا وربورك أو كحساسية أما كبريك نيوزية هبان سودينا معناه إذا الدنيا ده عيب معهن قفك هدي السجع وقف ببلغي هاي dadka qaar waa inay fahmaan qafku haduu asagu yahay qaf public bulshadana public ka ii sheeg maxaa wuxuu rabo public ku ahaad ama lagu yaqaanay marba hadii qafka public uu yahay noloshiisa in public looga sheekay sometimes soo imaanaysa sababtoo ah qafka waa qaf public noloshiisana waa public si kasta aataba video kan waxaan kaga hadli doonaa King CK youtuber ka taqaanaan King CK ama Umar Krish sida u taqaanaanba يحاجيديسي عصبات اي اسقبين مدة بيشو كودو هدي ايسان بالكيرين وبالعمل باكلا تغي ورد دقدقة هيا نغسو غاري اصحاب كودو سيكي با نلسو سعسي ارنتاس يو اصحاب قواد كودو انت با نلسو سعسيين قوادتان يويلكتان با مدوين كدنبي آد متقانا فرحادو دا يجعيلكو دا يو uwad waday oo meel kasta waxa ka arki karteen Instagram-yada Snapchat-ka maxaa la dhihi jiray fiidiyoyaashooda sida farxadaha ay u wadaagayaan waxay ahaayeen qoys aad u qurux badan oo aniga laftigeygu waa jeclaystay qaababka ay sawirada u galaan qaababka ay farxadaha u qaadayeen u sameynayeen qaababka shoobinada ay u aadayeen I like it aad baan uga helay waxay ahayd si aad u qurux badan qoys wuxuu ahaa qurux badan oo mataqaanaa ay ka muuqato farxado badan ay ka muuqato mataqaanaa ishag maxaa lahaa kalkacayl naxariis jacayl gacmaha isaystaan laakiin I don't know sababta la isku furay dalaaqo baa CK ka dhacday baa la leeyahay CK waxa la leeyahay hal dalaaqo buu ku furay la leeyahay gabadhan sida mataqaanaa ila noo soo sheegeen laba dalaaqa u hartay waxa laga yaabaa waliba dadka barnaamijka nala soo socodsiyo waxay leeyihiin inay isku soo laabtaan way dhici kartaa laakiin hadda oo aan muuqaalkan duubaya CK iyo xaaskiisu ما ودا جوغان gabadha reerkeeda ay ku laabatay gurigii CK-na waa ay ka tagtay arrimo badan baa dadku qaar isla dhex marayaan waxyaabo badan baa isla dhex maraya ishaag maxaa lahaa oo dadku ay aad mataqaanaa u hadalhayaan walow anaga arrimahaas aan hubin laakiin dhalinyarada tan sida nooga muuqatay waxay ahayn dhalinyaro faraxsan dhalinyaro mataqaanaa ay ka muuqato farxado dhalinyaro ay ka muuqato mataqaanaa inay happy yihiin laakiin ma garan karno sababta guurka kan oo sida mataqaanaa degdeg ah u dhacay oo furitaankiisi iyo wixiisi si kastay ha ahaataba ishaag maxaa lahaa waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan baa jira message badan baa jira Instagram-kana kugu soo diray oo dadkii noo soo diray ay inta ka mid yihiin sawaha lagu kala tagay waxaa kamid ah ayaa la leeyahay asagoo baashaalaya oo gabdhala baashaalaya oo jawi ku jiro ayaa laga dul keenay olaga maalin hore Belgium-ka ku maqnaa sida ala socotaan gabadhii asaga oo baashaalaya Vienna ishag maxaa marka oo Belgium-ka ka soo laabtay oo Brussels faladegan oo arkaysay soo video la duubay faladegan marka oo ka soo laabtaba Brussels asoo ku jirana waa laga dul keenay sidoo kale asaga iyo Leila Blill oo baashaalaya ayaa video snapka lagu xaday video ayaa snapka lagu xaday asaga iyo gabdho badan oo mataqaanaa cadaan iyo Eritrean la baashaalaya baa video laga duubay ishag miiskoodu waa sharaxnaa waxyaabo badan baa jooyo badan bay ku jireen laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan kulay gabadha ninkan waa ku ogeed waxyaabihiisa kale iyo sida aan qiyaasayo waa must white laakiin waxyaabaha gabadhu la fajacday ama ka xanaaqday waxa ay tahay lagu leeyahay asoo gabdha la baashaalaya Eritrean iyo cadaan baa ishag maxaa lahaa muuqaal laga duubay gabadhina loo diray arrimaha ay ku burbura qoyskan arrimahaas ayaa u sababa CK oo aad taqaanaan inuu yahay nin aad u fudeed badan ishaag maxaa lahaa dadka yaqaana ama dadku u dhow ku yaqaana arrintaas waa nin aad u fudud badan waaye go'aankiisa wax walba iskaga fududaada ku degdega Instagram-kiisa
cadeymaha dadku ay ogaa karaan dadka qaar waxa laga yaabaa in barnaamijka been u moodaa laakiin cadeymaha aad ka ogaa kartaan oo annaga aan idin xaqiijinayna waxay tahay Instagram-ka CK haddaad tagto CK Instagram-kiisa haddaad tagto waxaad ogaa kartaa in mataqaanaa bataatan sawirada oo ka saaray CK Instagram-kiisa haddaad tagtid waa kaa CK Instagram-kiisa waa kaa mujadin kulli sawirada waa ka saaray kulli sawirada gabadha waa ka saaray sawirada gabadha astaamihii muujinayay in uu gabadhan ay isqabaan arooski marka ay dukaamada galayaan oo kala sawiro iska qaadeen sawiro hadda aragteen in kale iyo mataqaanaa oo ayaan hero ay galeen mar shopping u socdeen sawiro badan ay galeen video baranki oo haaf ku jiray kulli Instagram-ka uu ka saaray dadka bartiisa snapka ku xidhan waa ay la socdaan hadalada oo mataqaan hadal u isticmaalaya maalmaha kan si kasta ahaataba CK iyo gabadha tan waa isfureen waxaana naloo xaqiijiyay oo naloo sheegay in hal dalaaqo gabadha oo ku furay gabadhiina ay sidaa reerkeeda ku aaday kadib markii asaga oo baashaalaya naaga cadaan ah iyo naaga Eritrean ah asaga oo la baashaalaya ama la tumanaya gabadha snapka loogu soo diray waxaas ku sameynaya waa qof saaxiibkiis ah oo u dhow oo mataqaanaa la joogo horta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa ama aan kula talinayaa mararka aad baashaalaysaan inkastoo baashaalka iyo waxa kan ay qaladiin haddana marka aad baashaalaysaan ama aad waqti qaadanaysaan iska dhaafa taleefanada aad isticmaalaysaan taleefanada iska damiya taleefanada xagga iska dhiga baashaalkiina dambiga qaata kadibna kala danaysta baashaal baa la qaadanayaa jawiyaad ku jirtaan activity waxbaad dhaqaajinaysaan haddana waxa arkaysaa taleefan qof kastoo saas taleefan ku haya saas waxyaabaha kan waa soo noqnoqday guryo badan baa ku burbura taleefanadan la duubayo waxyaabahan guryo badan baa ku baabay dad badan baa sharafkooda iyo cishigooda ku baabay ilma adeero gacaliya haddaa walba baashaal iyo balagaleydaan iska dhaafa waxa kan ay aad sameynayaan iska dhaafa waad aragtaan hadda CK arooska kan bilbow CK aroos yahay haddana maanta waa kana waa ay kala tageen gabadhi arrimahaas marka waxa sameynaya waxa waaye dhalinyarada taleefanada duubaysa smartphone-ka qof kasta oo jeebka ku wato weey iska dhaafa baashaaladiina gala markaad baashaalaysaan kulli taleefanada dadka laga aruuriyo qolha lagu xaray markii baashaalka dhama taleefanaha loo qaybiyo wiilka kan hadda gurigiisa waa u dhaqnaa lahaa haddii inaan ka duubi lahayn marka dadkuna waa xaasid qafna lama aamino si kasta ahaataba arrintaas baa soo kortay King CK iyo xaajiyadiisa cusbeed oo ku kala tagay hal dalaaqo iyo furitaan la iskugu daray gabadhana waa xanaaqday asaguna waa ka xanaaqay sababtoo ah ninka kan waa nin aaminsan haddaad YouTube leeyahay ama caan aad tahay wuxuu aaminsan yahay in waxa aad tiraad bis ay soconayaan noloshuna sidaas maahan caan ma tiraad haddaad president tahay xitaa dumarku waxay leeyihiin ixtiraam gooniye leeyihiin sharaf gooniye leeyihiin waxay leeyihiin ishaq maxaa lahaa saameyn gooniye leeyihiin waxay leeyihiin dumarka ishaq maxaa lahaa qadarin gooniye leeyihiin waxay leeyihiin ishaq maxaa lahaa in la ilaaliyo waxay leeyihiin inaan la qiyaanin sharafkooda iyo cishigooda waxa dhan la ilaaliyo laakiin caana ahay ishaq maxaa lahaa waxaan rabaa iska sameynaa nobody oo ka aqbalay taas ma soconayso kuma faraxsanin aad baan uga xumahay waxa ku dhacay walaalkay King CK iyo gabadha walaashay aroos curdun ah oo hadda la aasaasay oo ahaa qoys Soomaaliyeed weeye kuma faraxsanin waxaan leeyahay insha Allah waxaan rajeynayaa warooy waxaan ka rajeynayaa inaad gabadha soo celisid sida ugu dhaqsiyaha badan aad iska diidid arrimahaas oo kale hadda kadib haddaad baashaal galeedo mood ku gashid ayadana waxaan leeyahay ninkaaga dhaqo walaalay gacaliso insha Allah hadduu ilaahay waxaan rajeynayaa inaad isku soo laabataan qoys Soomaaliyeed oo waxatiin curdun ah oo hadda la dhisay aad baan uga xumaa waxa idinku dhacay dhamaantiin waa idin salaamayaa waa Royal Family oo kaga tagay intaan muuqaal lamida ka kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo